بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا دمان مواطنين الصوماليات الضمير كل هيمال كستو أي جوجان با وحن أسوق لعاوة إن أن هلا يلا بك إرادو هذا الكي بريهم با لسلن حمري قلب كور باينتا كدي مركي رئيس الوزراء دلك إثيوبيا وموجيي arrin marna aanay ka fileen ummadda Soomaaliyeed isagoo ka sanqariyay in dagaalkii sanadkii 1977 dhex maray ciidamada Itoobiya iyo jabhadii Soomaali galbeed oo ay taageerayeen ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed asluubta daraawiishta iyo booliska iyo shacabka Soomaaliyeedba oo aan loo kala harin ee uu ku sheegay kuna micneeyay taariikhdan uu akhriyay si aanan sax ahayn oo qaldan taasoo ah marin hababin waxaanu leenahay arrintaasi iyo dagaalka dhex maray jabhadii Soomaali galbeed oo ay taageerayeen ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed waxa uu ahaa dagaaladii gobnadoonka ee soo mara qaaradda Afrika midkii ugu mugga weynaa uguna xusuusta badnaa ee geesiyaasha Soomaaliyeed ee ka qayb galay lagu xaqday magacyadooda xusuus taariikheed waliba bugaga dahabiga ah ilaa imika haddaad akhriso kutubta taariikheed ee u yaala qaaradda Afrika haddii aad si wacan u dheehato waxaad ka dareemaysaa sida geesiyaasha Soomaaliyeed ee ay uga qayb galeen dagaalkaasi iyo wacdaradii ay ka muujiyeen ma jecla inaan ku dheeraado laakiin waxaan jeclahay saddex qodob inaan dul istaago waa midda koowaad kuweebaa xusuus mudan ciidamadii xoogga dalka ee Soomaaliyeed ee iyagu muddo ka yar 9 bilood intay ka dhaqaaqeen oo ay ka gudbeen deegaanka qorac joome oo ay ku gaareen 9 bilood ka yar deegaanka loo yaqaan Hadaamo ee maanta loo yaqaan Nazareth isla mar ahaantana kaabiga ay ku hayeen magaalada Addis Ababa ee ahayd caasimadda dalka Itoobiya ee markaa ay soo bahaysteen ciidamadii Warso ama wadamada markaas iyagu raacsanaa mabda hanti wadaaga ee shuuciyada mise qolihii dhabarka jeediyay ee min qorac joome ilaa ay halkaas la eriyay maanta in lagu sheego waxa ay eriyeen ciidamadii Siyaad Barre uu soo diray in ay ku xadgudbaan oo ay ku gardaroodaan deegaanka Itoobiya in la yiraahdo kuwaas amana lagu tilmaamo geesiyaal waxay la tahay wax arrinta ka fog qofka haduu doonayo in uu siyaabo magac ku raadiyo ama doorasho uu macnaha ololaheeda uu kaga qayb galo ma aha inuu xaqiiqda ama raadka taariikheed inuu marin hababiyo ma wanaagsana marka geesiyaasha Soomaaliyeed sida ay xustay taariikhda midna kuma qaadan waqti dheer qorac joome way ka gudbeen qabri dahare dhagax buur goday meesha kaliya ugu adkeyd sida uu ii sheegay xogayihii jabhadda Soomaali galbeed ee berigaasi uu ii sheegay Allah u naxariistay meesha ugu adkeyd waxay ahayd saldhiggii ugu weynaa ee ay xabashidu ku lahaayeen buuraha Karamardha halkaasoo Mareykanka hore uu sheegay markii dagaalkaasi uu bilowday ee gumaysi diidka ahaa oo Mareykanka hore uu sheegay in ciidamada Soomaali aanay awood u lahayn oo ay ku qaadanayso xitaa muddo sanad ah in ay ka talaabaan buurtaasi Karamardha ee difaaca u ahayd ciidamada dergiga ee Itoobiya Talyaanigu isagu ka sii xag jiray oo wuxuu yiri 2 sanadood xataa ilama ah inay ka gudbayaan Ingiriiska laakiin wuxuu yiri anu qiyaastayda waxaan aqaanaa ciidamada Soomaalida ayaan aqaanaa iyo sida ay u dagaalamaan wuxuu yiri 3 bilood inay ku gaarayso ilama hase yeeshee geesiyaasha Soomaaliyeed ee ka qayb galay dagaalkaasi
ee maantaba qaarkood ay nool yihiin ay nolosha ku jirto oo la waraysan karo oo cid kasta ay u tegi karto aniguna aan ka soo xigtay dad xogogaal ah saraakiil maantaba nool ee dunida ifka ku nool iyo sareeyo guud maxamed cali samatar allah u naxariistee codkiisa oo duuban waxa ay sheegeen 14 cisho in ay kaga tallaabeen buurta Karamardha waa 2 toddobaad waa meesha la sheegay sanad iyo 2 sanadood iyo 3 bilood oo waliba ingiriiska uu sheegay taasoo ciidamada dergiga ee uu markaasi ka amar ku taagleynayay Mengistu Haile Mariam ciidamada midowga Soviet uu ku eedeeyay in Soomaaliya ay siiyeen hub oo aanay ugu deeqin dhankooda waayo xilliga waxa dhacday barigaas waxa dhacday in dawladda Soomaaliyeed muddo 7 cisho ay Ruushka ay kaga saartay dalka kadib markii ay dareentay xoogaha in uu u xaglinayo dhanka Ethiopia hase yeeshee geesiyaasha Soomaaliyeed iyo taliyayaashooda waxa ay kaga tallaabeen buuraha Karamardha hubkii loogu talagalay sida uu ii sheegay xogayii jabhadda Soomaali galbeed Allah u naxariistee waxay kaga tallaabeen hubkii xagga cirka ee lagula dagaalayay diyaaradaha ayaa lagu foorariyay markaas ciidamada dergiga xabashida waxay u qaateen hub cusub oo Ruushka markaas uu siiyay iyagana uu mid kale uu siiyay taasina geesiyaasha Soomaaliyeed waxay u suurtagelisay buuraha Karamardha inay dhaafaan diradaba ka gudbaan harar ay sii socdaan oo diyaaradihii Soomaalida markaa in loo wareejiyo halkii ay Hargeysa ka duuli jireen in loo wareejiyo saldhig muxuu ahaa airportka diradaba oo ay ka duulaan markaas oo qaarkood ba la sheegay in Addis Ababa inay gaaraan oo ay ku soo muxuu ahaa ay ku soo damaashaadeen qaarkood marka kuwaas ee saa u galay barigaas ee gumaysi diidka ahaa ayaa xusid mudan ayaan leenahay Karamardhana waa dhul Soomaaliyeed ee maaha dhul Ethiopia ay leedahay maaha waana wax qoran oo taariikhdu ay marna been ka sheegeen midda kale ee arrimaha caddeynta ah waxa ay tahay ciidamada Soomaaliya oo 50,000 aanan gaarin barigaas iyo Ethiopiaanka oo aad u hubaysnaa oo markaana ay taageerayeen wadamo fara badan oo ay kamid ahaayeen wadamadii muxuu ahaa ay kamid ahaayeen wixii hanti wadaaga aaminsanaa gaar ahaan Cuba ciidamada Cuba Yemen Koonfureed ee Salim Rubiic Cali markaas iyo Cabdi Fataax muxuu ahaa shuuciga ahaa ee iyagu ay ka talinayeen wadamada shuuciga qaarkood dunida carabta iyagu aaminsanayd muxuu ahaa shuuciyada barigaas oo iyagana hubka laga soo daabuli jiray sida Ciraaq oo markii Ruushka laga soo qaaday dabaabadaha ay ku hakan jireen diyaaradaha sida dabaabadaha halkaas ay ku hakan jireen maadaama xilligaas aanay jirin diyaarado horumarsan oo xagga hawada ku kala qaata shidaalka hase yeeshee geesiyaasha Soomaaliyeed waxaasi muddo kuma qaadan oo waxay ahayn dad damiir iyo wadannimo ay hogaaminayso ayay ahaayeen waxaa dhacday markaa kadib markii ciidamada Soomaaliyeed ay kaabiga ay u saarayeen Addis Ababa oo Mengistu Haile Mariam uu la yaabay nafta uu u yaabay ayaa waxa uu aaday uu ka degay midowga Soviet markuu uu ka degay waxa uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi midowga Soviet xukumayay ee ahaa Brezhnev isagoo sita warqad cad hoos magaciisa uu ku saxiixay markaas uu xiriir Brezhnev fadlan Ethiopia maanta waxay gacanta ugu jirtaa siyaad bari ciidamadiisa marka fadlan waxaan ka baryaynaa in aadna badbaadiso talaaday ku saaran tahay waraaqdaana wax alla waxa aad Ethiopia uga baahan tahay ku xuso iyo wax alla wixii shuruud aad nagu xirayso ku qor meesha annaga ku waka saxiixaygu waaba u saaran yahay markaas Ruushki soo kiciyay wadamada shuuciga oo dhan oo xagga laga soo wada saftay oo ciidamadii geesiyaasha ee Soomaaliyeed ee intay xoreeyeen dhulkooda ay dhaafeen oo ay cardaadiqaha ka dhigeen cagtana ay mariyeen
gumaysigii madoobaa ee Addis Ababa ay ku dhow yihiin ayaa duulaan marka oo dhinac kasta oo la isu bahaystay huwanta ay isu bahaysatay ayaa lagu soo qaaday. markaa kadib ayay dhacday marka in dargiga Ethiopia sida uu ii sheegay ama ay ii sheegeen saraakiil markaas ka mid ah hoggaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo jabhadaba ka mid ahayd iyo sida uu ii sheegay xogayihii jabhadda Soomaali galbeed uu ii sheegay waxaa dhacday in ciidamadii xabashida ay naf iyo markaa ay isbidaan in ay ciidamada Soomaaliya sida ay iska dhigayaan sida kuwa ka guuleysta oo kale ay iska dhigayaan oo markaasi ay bilaabeen in ay aarsi iyo balaayo ay bilaabaan. hase yeeshee wuxuu ii sheegay xogayaha jabhadda iyo taliyayaal muxuu ahaa qaarkood hadda ay nool yihiinba oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed waxay ii sheegeen in ruushka uu yiri kuwani waan aqaanaa daraadna waad iska qaban weydeen marka hadda maaha inaad aarsi iyo waxaas aad ku aarsan waa inaad wadada u banaysaan iyagana ay ka talaabayaan. taasi waxaa ka horreysay markaa oo aan rabay inaan idin ifiyo in marka ruushka oo Mangista markuu ka degay midowga Soviet uu ka degay uu Brezhnev uu la kulmay in madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Allah naxariistay loo soo diray madaxweynihii Liibiya Allah naxariistay Muammar al-Qaddafi loo soo diray oo la yiri waxaan ka codsanaynaa fadlan ciidamada inaad dib u soo celiso ciidamadaada inaad dib uga soo celiso aad ka soo saarto dagaalka sababtoo ah waxaa laga yaabaa in weerar culus uu ku yimaado oo markaa ay ku baaba'aan meesha. fariintaasna waxaan kaaga sidaa ruushka madaxweyne Maxamed Siyaad arrintii uu ka diiday waa ka gaabiyey. mar labaad ayuu Qaddafi haddana mar labaad ku soo laabtay aduu 2 isbuuc kadib isagoo u sida fariin ah ilaa ay Jigjiga ayaa laydin sharciyeynaya haddii aad tihiin jabhadda Soomaali galbeed oo ay taageereen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa Soomaali weyne waxaan idin sharciyeynaynaa ilaa ay Jigjiga inta kale ka hartayna wada hadal ayaa lagu dhamaynayaa. hase yeeshee madaxweyne Maxamed Siyaad berigaasi wuxuu yiri jabhadda Soomaali galbeed iyadaa dhulkeeda xoreysanaysa. waxaa dhacday marka ruushkii iyo wixii huwanta ah ee la socday ee kuubaanka ah iyo Yemeniyiinta ah iyo wadamada Shuuciga intoodaba in dagaalkii uu sidaas uu ku farabato ciidamada Soomaaliyeedna marka sidaas ay kaga soo laabteen. marka waxaan dhihi karnaa marka dargiga ayaa ka guuleystay miyaan ku macnayn karnaa ciidamadii Soomaaliyeed ee gumaysdiidka ahaa ee 9 bilood wax ka yar ku xureeyay dalkooda. marka ma ahan kama filayn lagamana sugayn ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ee ayaa dhawid qaatay bilada Nobel Prize Peace la siiyay in uu ku sheego in ciidamadii Soomaalida geesiyaasha inuu ku sheego inay ka baqacreen dagaalka kadib markii geesiyaasha Ethiopia ay yiri waa sida hadalka uu dhigay ay weerar ku soo qaadeen. arrin kale ciidamada Soomaaliya markay dagaalka qaadeen ee gumaysdiidka ahaa calanka dalka Ethiopia waxaa ku sawirnaa libaax ayaa ku sawirnaa bartanka waxaa kaga yaal libaax taasoo lagu micnaynayay inay yihiin libaaxyada Afrika. hase yeeshee 9 bilood wax ka yar markii cagta la mariyay ciidamadii markaasi reer Warso ay ka soo qayb galeen dagaalka ayaa wariyay ka socday wargeyska Sharqul Awsat sida ay ii sheegeen ilo xoogaa lahi waxa uu tagay Mangista wuxuuna ku qaabilay hotelkii ugu caansanaa markaas Ethiopia oo ahaa Webi Shabeelle ayuu ku qaabilay. markaas wuxuu yiri ii waran Mangista dagaalka ka waran. markaas yiri waa soconaa oo dabadan kaga jirnaa ciidamadii Soomaaliya. markaas wuxuu yiri wariyihii ciidamada Soomaaliya idinka kaliya iskama dhicin ee waxaad hesheen gacan oo idinkaga timid dhinaca wadamada hanti wadaaga ayaad ka hesheen garab weyn taasaana markaasi kaliftay inay dib uga gurtaan dagaalka. marka waxaan ku weydiinayaa yiri marka calankan ee aad leedihiin ee bartanka ay kaga daalo ama uu kaga sawiran yahay libaaxa ciidamadii iska lahaa astaantaasi ee ka soo baqacaray Soomaalida
idinkoo boqolaal kun ciidamadiina ay kor u dhaafayeen iyaguna ay sodomeeyo kun ay ahaayeen keliya konton wax ka yar ay ahaayeen ee cagta idin soo mariyey miyaan dhihi karnaa libaaxyada africa mise idinkaan idinku tilmaaminaa libaaxyada africa adiga arrintii jaraa'idyo fara badan ayaa lagu soo qoray kadib waxaa dhacday Mengistu astaantii libaax ahayd inuu ka saaro calanka Ethiopia waatan calanka Ethiopia maanta aad arkaysaan aanu lahayn libaaxii bartanka kaga sawirnaa arrinta ka liftayna ee dhalisayna waa arrintaas ayay ahayd marka waxaan u sheegayaa jiilasha Soomaaliyeed ee iyagu ku dhashay xilligan burburka ee 30 sanadood Soomaaliya burbursaneed Soomaaliya ma ahayn dal sahlan ma ahayn waxay ahayd Soomaaliya dal laga yaqaan qaaradda Afrika ayay ahayd marka qof alle qofkii dan kala leh waxaan rajaynaynaa in ay taariikhdu aanay dhinaca kale u rogin waxaana waxay ku qoran yihiin diiwaano ay ku qoran yihiin meel waliba ayay yaalaan cajalado duuban ayaa jira oo meel yaala Soomaalida berigaas waxay ka tirisay suugaan fara badan xilligaas dagaalku uu socday waliba Harar iyo Hawaas habeen dambe waan hayaa marka la lahaa xagee joogeen ciidamada Etoobiyaanka ciisaantii masiya good madax shabeel leefta malageeda baa galay xagee joogeen marka waxaan leeyahay yaan lagu kadshoomin ummadda Soomaaliyeed muwaadinka Soomaaliyeedna waxaan xusuusinayaa mar waliba in damiirka qarannimo in uu ilaaliyo midnimada iyo walaaltinimada Soomaaliyeedna inay ilaaliyaan meel kasta ay joogaanba waad mahadsantihiin